guddida horumarinta arrimaha dacwadda iyo waxbarashada ee Higsi ayaa si toos ah degmada Bulaxaar uga dhagax dhigtay madrasad boodhana oo lagu baranayo xifdiga Quraanka Kariimka kaasoo si hab farshaxana loo dhisi doono isla markaana ay ka qalin jabin doonaan arday kala duwan oo loo tababari doono ducaad. daba munaasabadii dhagax dhigani ayaa lagu soo casuumay mas'uuliyiin ka socday maamulka degmada Berbera, gudoomiyaha degmada Bulaxaar, culimaaudiin, waxgarad iyo waalidiin. waxaana munaasabadani faahfaahin dheeraad ka bixiyay gudoomiyaha guddida Higsi Sheekh Cabdirasaaq Jaamac Axmed, waxaana uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay dhismahan iyo madrasadan lagu koryeelayo xifdiga Quraanka Kariimka. waxaana gudoomiyaha hadaladiisii ka mid ahaa 2022 ayaa fikir haldoor dhalinyaro aqoon-yahana oo isku yimi ay markaa garteen in ay ka shaqeeyaan deegaanka xeebaha deegaanada xeebaha in ay xeebaha galbeedka Berbera in ay bal ay aqoontooda iyo u kuur galaan xaaladooda. kadib waxay ogaadeen wax badan oo baahi badan ay taalo aqooneed markii ay rogrogeen deegaanada reer guuraabay u badnaayeen goobta Bulaxaar markii hore waxbarasho ka jirtay ayaa markaa ay haldoorkaasi garteen in ay maadaama dad badan ay joogeen in halka laga fuliyo martaqaanay goob waxbarasho ay haydna magaalo aqooneed fac weyn oo ilbaxnimo hore iyo martaqaanay aqoon hore markaa yani u saaxiib ahayd ayay markaa garteen dhalinyartaas in laga bilaabo halka 25 bishii December 2022 bay go'aansadeen inay hawsha fuliyaan oo markaa yani furitaankii macad lagu magacaabo Fathul Khayr ay bilaabeen markaa madrasad xifdi quraana iyo markaa culumta asaasiyaadka lagu dhigayo. madrasadda waxay ku bilaabeen 15 arday 15 ka arday ujeedka loo qaatay waxa ay ardayda kooban in labada gelinba la hayo cuntadu guryaha ay u doontaan dadna ardaydaas ay noqdaan arday lagu tabco oo noqdaan ducaad loo tababaro deegaanka. ahdaafta ugu waaweyn ee markaa ay u dajiyeen waxay deegaanka qaalibka macallimiin xumo laga cawdo oo badanka macallimiintu inta yimaadaan qaalibka kuleelka ay la keenay waa macallimiinta deegaanka hayni inay markaa deegaanka helo dad aqoon leh oo markaa deegaanka waxbarashada iyo markaa yani haga u noqdo oo hoggaan u noqdo aqoonta. markaa macadka asaaskiisu wuxuu ahaa in loo tababaro arday hadhow macallimiintii iyo mataqaan ducaadii deegaanka noqon lahayd. ahdaafta waxa ka mid ahayd in hadhow mustaqbalka fog biidnillaahi tacaala inay goob ballaaran oo deegaanada xeebta oo dhan biidnillaahi tacaala ardayda laga keeno oo halka lagu hayo si ay noqoto goob diineed ballaaran oo ummadda markaa yani anfacda. ilaahay mahadii muddadii koobnayd ee macadkaas uu ta'siiskiisu dhisnaa 15 arday 5 bilood ugu horeeyay waxaanu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dhameystiray oo qorshuuna u ahaa in qoraalkii akhriska bartaan higaada ayaan carabiga ilaahay mahadii 15 arday bishii shanaad ee ugu tala galay 5 bilood gudahood way ku qaateen. qorshaha labaad wuxuu ahaa in sanadku markuu dhamaado ardayda wax kamid ay 5 jis dhameeyaan. ilaahay mahadii ardaydii 3 meelood oo meel kamid 5 jis way dhadhowday ama qaarkoodna way dhameeyeen qaarna waa bay dhaafeen oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa suura galiyay. inta kalena jiska saddexaadii bay ku jiraan wixii ka sareeya waxaan oran karnaa hadafkaasina 80% ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa fuliyay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa inoo ogolaaday. maanta oo aynu halka joogno waxaynu taaganahay in aynu ta'siiskii bilowno oo aynu bilowno dhisme dhagax dhigga iyo markaa dhismaha bilowgiisa aynu israacino oo kale walaal kale oo dhismaha gacanta ku haya uu inoo taataama doona iga dambeyn doona. waxaan raacinayaa oo meesha ka marnay wacyigelintii guud ee deegaanka hadday noqoto maadiga iyo hadday noqoto horumarka deegaanka oo dhan ee wacyigelinta ee waxbarasho iyo aqooneed iyo mataqaanaa wacyiga ummadda. guddidana waxyaalaha ku hawlan tahay kamid tahay inay ka shaqeyso. ilaahay mahadii waan wadnaayo wacyigelintana waan raacinaayo safarra aan 10 safar ka yareyn baanu ku soo baxnay oo markaa wacyigelinta aan isku dhex wadnay inaan markaa ardayda yani kuurgulkooda iyo markaa gacanta ku hayno. ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaga mahad leh wax dadka sida gaarka ugu mahadnaqayno ee sida gaarka wax uga geystay dad deegaanka kamid ah iyo qaar markaa yani ka baxsanba oo deegaanka dad ay u badan yihiin ayaa macadka ta'siiskiisa hore ka qayb qaatay oo walaalka dambe faahfaahin doonaan u mahadnaqayno. sidoo kale degmada oo maamulkeeda hogaaminayo iskaashanaysaana dhul boqol ayay ku wareejiyeen oo ugu mahadnaqno maamulka degmada iyo markaa yani deegaanka kale oo iyaguna kula shaqeynayay. dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa dadka qalbiga furan ku soo dhaweeyay annaga oo hawsha wax badan ka garanayn hagaha noo ahaa markaa lagu hogaaminayay mar mahadnaqaynaa maamul iyo markaa yani shicibba ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka u saaro intii ka shaqeysay maamul mataqaanaa iyaguna maamulaya hawshan hagaha hayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyagana ha barakeeyo sharfo. mas'uuliyiinta munaasabadani lagu soo casuumay oo kamid ahaa gudoomiyaha degmada Bulaxaar
cabdiraxmaan maxamed xasan agaasimaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda caafimaadka doctor cabdiraxmaan ibraahim axmed aqoon-yahan cabdiqaadir axmed aadan iyo xubno fara badan oo isugu jira culimaa'udiin iyo waxgarad ayaa iyaguna kelmado munaasib kuwa ka soo jeediyey dhagaxdhigga madrasadda degmada Bulaxaar waxaana ay faahfaahiyeen inay bulshadu ay ka qayb qaadato dhismahan isla markaana kor loogu yeelayo kalaamka Ilaahay iyagoo mahadnaq iyo ammaan u soo jeediyey guddida dhalinyarada ah ee ku bahooday Higsi isla markaana kor u qaadaysa barashada diinteena islaamka waxay bulshada islaamka ku dhiirigeliyeen in lagala qayb qaato dhismaha boodhankan cajiibka ah ee laga yegleelayo degmadani waxaana mas'uuliyiintani hadalladoodii ka mid ahaa madrasad khayriya oo ah diiniya oo diinta lagu dhigo caruurta lagu xareeyo oo doonaynay inay noqoto boarding weyn oo caruurta diinta lagu baro oo khaliya labada galanba lagu hayo oo dadaalaya culimada dadaalaysa oo aad u qiimo badan halkan ay u timid degmada Bulaxaar waxa ka jira waxbarashadu way ka jirtaa fara badan oo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe uu ka jira oo darasad quraan way jirtay اللهم صل على محمد سيده وشيغيو agaasimoyin waxa caafimaadku u jira si fiican buu shaqeeyaa wasaarad kasta oo ay leedahay dawladda dhexe si fiican buu uga shaqeeysaa wayna horumarkeeda biyo tahay hadii ay adeegyada kale bulshada tahay si fiican buu socotaa aad bay wanaagsan tahay halkan boarding weyn baa nooga dhisan oo ah dugsi loogu talagalay in caruurta lagu xareeyaa isagana hawshiisa uu dhameystiran yahay wixii kalena waa laga qaban doonaa kan laakiin wuxuu kaga duwan yahay waa waxa ugu qaalisan wax laga shaqeeyo waa quraanka kariimka ah oo khaliya oo caruurta lagu barayo kuwii aan maalintii hore waabka ku bilownay aan isugu nimideen waabka yar ugu sameeynay meel maanta si fiican bay wax u barteen waxay marayaan 3 jis ilaa 4 jis 5 jis bay marayaan wax yar baan muddo yar baahayd maanta hadana waxay ku soo dadaaleen in ay bal wax kale sii gaarsiiyaan si ay waabka uga saaraan siday u dadaalayaan degmada Bulaxaar dadka ka tirsan ee deegaanka ee culimadii ee jooga maanta culimada sida u dadaalayso kala maana arag dadaal degdega waa dhalinyar aad u qiimo badan waa dhalinyar u baahan in la dhiirigeliyo oo mar walba la garab qabto ninku mar hadduu sidan u soconayo wuxuu muddadan ugu tala galay sidoo u shaqeynayo uu degdeg u soo hawl geliyo wuxuu u baahan yahay in aanu soo leecin oo la taageero wax la qabto waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan degmada Bulaxaar cid danaynaysa ee ka tirsan reer Bulaxaar ah iyo wixii islaamada diinta islaamka danaynaysa in ay inamada garab galaan maxadka khayrigaana ay naga qayb qaataan way laba maqsimo nimka hayna anagu maamul ahaan iyo gobol ahaan waan ka tashan doonaa wixii aan la qaban karayno meel walba waan la galeynaa waxaan leenahay hal la soo caawiyo oo wax la qabto si ay u noqoto madrasadani quraanka oo isugu yimaadaan ummad badani sida reer miyiga dadka reer miyiga looga soo ururiyo quraanka loo baro imanka inta ay nala joogeen dad badan wax fahmay waxay gelin bay wadaan wayno imaadam saajidkiiba ka hadlayaan wax badan oo nimadu garanay ay fahmeen reer miyiga baa imanaya wax badan baa la qabtay walaal culimadaas aniguna aanu garab taaganahay dhulka badanna marka ay hawshan sidee u sii socoto waanu ballan qaadinaa waanu siinaynaa madrasadda aad baan ula shaqeynaynaa maxadka ay culimada halena hala soo caawiyo hala la qabto hala garab galo waxaan doonayaa inaan booriyo oo nidhaahdo waad mahadsan tahay jazaakumullahu khayran macalinka inta badan halkan u samraayay ardaydan maanta mataqaanaay aynu doonayno inaanu u dhagax dhigno macalinkaasi waa mahadsan yahay waxaan doonayaa inaan kaloo nidhaahdo maxaa la dhahdaa reer Bulaxaar inta halkan joogta deegaan ahaan mas'uuliyiin kala duwan baa joogta garsoorayaal baa jooga ganacsataa joogta maxaa la dhahdaa dhalinyar kale oo shaqooyin kala duwan haysaa joogta mas'uuliyiin dawladda u shaqaysaa joogta dhammaantood waxaan arkayaa inay dareemeen ama ay waxa weeye dareemayaan baahida ka jirta magaalada Bulaxaar oo ah magaalo qadiimiya taariikh fac weyn leh hase yeeshee intan dambe aanay cid badan ka soo bixin kulay anigu wasaaradda caafimaadka ka shaqeeyay wasaaradda caafimaadka si fiican bay halkan uga shaqeysaa waxaan rajaynayaa inaan insha Allah tacaala maxadka aynu dhagax dhigaynaa inuu noqdo mid lagu liibaano oo wax wanaagsan ka soo baxaan waxaanay ku xidhantay taasi
dadka deegaanka iyo maamulka iskaashada dadka deegaanka waxaan ku dhiirigelinayaa mar walba in ma taqaanaayay waxbarasho wanaagsan la helaa way adag tahay ama guulo fiican la gaadhaa way adag tahay laakiin waxa lagu gaadhaa waxa ka mid ah kowka iskaashiga iyo israaca iyo wax wada qabsiga iyo waxa weeye tanaasulka iyo horumarka deegaanka ayaa lagu gaadhaa haddii dhalinyarta berbera iyo hargeysa iyo gobollada kala jooga ay maanta garteen inay intan sameeyaan bal waxaan isweydiinaa deegaanka reer Bullaxaar guud ahaan intay qabsan karaan wax badan bay qaban karaan haddii runta la sheegayo haddii waxa weeye haddii la isku tala ahaado oo la dareemo baahidu halka ka jirto qofka haddii aan waxba la barin adduunyada xukuma soo kordhin karo si wax ugu soo kordhiyo waxaan u baahanay markaa inaan carruurta yaryar soo koraysa wax barno cilmi maadiye iyo mid diiniyaba waxaan u mahad celinaa dhammaan intii ka geystay hanti fikir iyo xoogba waan ugu mahadlaynaa waxaan leenahay ilaahay khayrka aad garatay ilaahay maalin ka khayr badan maalin ka kulul aka abaal mariyo waxaan jeedinaynaa un baaq aanu jeedinaa walaalaha muslimiinta meel kasta joogan dibadda joogan dalha joogan dadka waxaysta waxaan leenahay ilaahay wax siiyay inay ka soo qayb qaataan madrasada marka loo dhisaayo dadka marka quraanka ilaahay lagu baraayo kalaamka ilaahay lagu baraayo dacwadii lagu baraayo marka in laga soo qayb qaato meel walba qof walba joogo oo marka ku soo tari karo saadi iyo dahabti iyo Dar es Salaam iyo dahabshilba afartaba qof walba ku awoodi karo oo ku soo tari karo dadka magaalada iyo tuulada iyo deegaanka joogana waxaan leenahay inkastoo arigii uu abaar badan ku dhacday haddana wuxuu butarayaa qofkii 2 neef helaya qofkii 3 neef helaya qof walba wuxuu helaya karaankiisa insha Allah kaga soo qabato waxaana loogu talagalay marka ubadka yaryar oo barkood agoon yahay barkoodna ay aabayaashood waxay kaga bixiyaan ba aanay haysanin waxbarasho kaga bixiyaan ama macallin ugu qabtaan in goob waxbarasho loo dhiso macallinna loo qabto marka macallinkii waa loo qabtay goobtii waxbarashadana waa taymka aynu marka wax weeyaan dhismaheedii ama hadda aynu maaragtay la wada seeski socdo lacagta inta leeg 4000 iyo xoogay kulay xisaabta walaalkay bay hayay jaamac marka wax weeyaan 4000 iyo xoogay ayaanu imaka gacanta ku haynaa oo imaka lagu bilaabay inaha ina ku dhow oo yabo ku maqan oo inay soo xaroon doonaan in kala de ilaahay uu og yahay laakiin ay rajaynayno iyaduna way jirtaa waxaynu markaa u sheegaynaa in la wadaagayna walaalaha kuwayna la joogiyo kuwayna dhageysan doonaba inay arrinka la socdaan oo tabarruca ay ka qayb qaataan si ay markaa wax weeyaan aakhiradooda iyo adduunyadooduba ay ugu hagaagto waayo qofku marka ugu horeysa waa aslix nafsak naftaada hagaaji suma qayraka kadibna qayrka iyo walaalaha gurmad oo fidi walaalayaal halkan waxa lagu tala galay in ardaydu abay quraanka ku xifdiyaan ay ku dhameeyaan in Allah yarfacu bi hada alkitabi aqwaman wa yad'u biha akharin la subhanahu wa ta'ala wuxuu ummad kor ugu qaado quraanka wuxuu ummad ku duleeyahay hoos u dhacno marka quraanka eegi waayaan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiisanayaa in quraan naga dhigo iyo kuwa marka quraanka garab taagan sida darteed walaalayaal inaynu gacant ma isku qabsano kana qayb qaadano dhiiri gelino barbar taagnaano waa arrin waajib ah marka ayna saaran dhamaanteenba inaynu marka walaalaheen la garab istaagno wixii awoodeena ah si marka loogu dhiso ya dhismaha bilaabmay seeskiisi maanta la bilaabay gabagabadii munaasabadani waxa ay si toosan mas'uuliyiintani ay u dhagax dhigeen madrasada boodhanka degmada Bullaxaar kaasoo cabir weyn ku kacay isla markaana ay ka dhismayaan fasalo iyo waliba goobo ku munaasib ah ardayda wax dhigashadooda madrasadan ayaa loogu wanqalay magaca ah Fadhul Khayr isla markaana noqon doonta mid u noqon doonta fadhiyo furasho ballaaran oo dadka deegaankana ay ku soo hiran doonaan isla markaana ay ka soo bixi doonaan ducaad iyo aqoonyahano kala duwan hiibsanayaan warbaahinta nolosha islaamka Hargeysa ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan channelada warbaahinta nolosha islaamka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka, Instagram-ta iyo TikTok-ga
nagala qayb qaado sii fidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelino warbaahinta nolosha islaamka